وعن وناكسن صاحبي على الكاد نقد عونيسان وباوناس ميديا ورarkaan maanta idinku hayno qodobadiisa waxa ka mid noqon doona ciidamada Kenya oo dad shacab ah iyo xoolo badani ku laayay Jubbada Hoose Mustafe Cagjar oo dib loogu doortay dowlad deegaanka Somaalida maxay ka wada hadleen Sheekh Shariif iyo Ali Gudlaawe daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan wararka naga soo gaaraya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in saacadii la soo dhaafay ciidamada Kenya ay toogasho u geysteen dad shacab ah oo ku sugnaa qayb ka mid ah gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya dhacdadan ayaa ka dhacday Raskamboni waxayna dadka ay waxyeelada ay soo gaartay ahaayeen xulaleey ku dhaqan halkaasi toogashadan ayaa waxa ku dhintay nin lagu magacaabi jiray Carab Qoriyo oo ka mid ahaa dadka deegaanka halka ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale oo shacab ah sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daray in ciidamada Kenya ay laayeen xoolo fara badan oo gaaraya ku dhawaad ilaa 50 neef oo la ah oo ay lahaayeen dadka deegaanka ilaa haata lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in ciidamada Kenya ay dhibaatadaasi u geystaan dadka shacabka ah ee aan waxba galabsanin dadka deegaanka ayaa sidoo kale cabsi ka qabay in ciidamada Kenya ay sii wadaan dhibaatada ay halkaasi ka wadaan ciidamada Kenya waxayna baaq u direen dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale ma jiro wali wax hadal ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan dhacdadaasi lagu eedeeyay Kenya ciidamada Kenya ayaa marar badan lagu eedeeyay inay dhibaatooyin iyo tacdiyo ka dhan ah rayidka ay ka geystaan Soomaaliya gaar ahaan gobolada Jubbooyinka iyo gobolka Gado haatana madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dib loogu doortay Mustafe Maxamuud Cagjar oo ismaamulka hogaaminayay 3 sano ee la soo dhaafay kadib markii xilka laga qaaday lana xiray Abdi Maxamed Umar Cagjar ayaa ku soo baxay codad aqlabiyad leh kadib markii ay cod gacantaaga ugu codeeyeen xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad deegaanka madaxweyne Mustafe Cagjar ayaa mar kale hogaamin doona dowlad deegaanka Soomaalida 5 sano ee soo socota sida uu shaaciyay baarlamaankaasi sidoo kale waxa madaxweyne ku xigeenka ismaamulka Soomaalida ee fadhigiisu yahay jigjiga loo doortay Ibrahim Usmaan Farax dhinaca kale waxa haatan socda qabanqaabada xalfada caleemasaar ee madaxda cusubtaasi oo si weyn looga dareemayo magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulkaas caleemasaarka waxa qayb ka ah oo lagu casuumay mas'uuliyiin kala duwan oo intooda badani ka socda ismaamulada Itoobiya sida madaxweynaha dowlad deegaanka Oromiya Shalmis Adiza wafdi ka socda Somaliland iyo madaxda federaalka Itoobiya si kastaba Mustafe Cagjar ayaa xafiiska yimid 22 August 2018 markaasi oo isbedel ballaaran ku yimid hogaanka dowlad deegaanka ee Soomaalida haatana madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Ali Gudlaawe Xuseen ayaa magaalada Muqdisho wuxuu kulan kula qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed kulankan oo ka dhacay hoyga madaxweynihii hore ayaa diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka dalkaas Shariif Sheekh Axmed ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha Hirshabelle Ali Gudlaawe Xuseen sidii wanaagsaneed uu u hogaamiyay doorashada xubnaha aqalka sare ku matalayay maamulkaas oo u dhacday si daahfuran magaalada Muqdisho ayaa waxa ka socda kulamo ay yeelanayaan siyaasiyiinta Soomaalida iyaga oo ka wada hadlaya arrimaha doorashooyinka Soomaaliya daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraya war wixii dalka iyo dafaha caalamka aan idinkaga haynay wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinay anigoo ah Abdinajib Abdullahi najib akhyar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah